بسم الله الرحمن الرحيم. قدونك شرفت له لبدا أقل iyo xildhibaanada labada aqal sharafta leh bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaa sharaf ii ah maanta inaan hortiina imaado oon ka soo jeediyo warbixin kooban oo ku saabsan xisaab xidhka sannadda 2022 sida aad ka warqabtaan waxaa xisaab xidhkan la soo gudbiyey bishii March ayaa golaha loo soo gudbiyey iyada oo ay ku lifaaqan tahay warbixintii hantidhowraha guud ee qaranka. hase yeeshee July markaan halkan miisaaniyadda keennay waxaa nala faray in wasaaraddu soo gudbiso warbixin aan la soconin inay wasaaraddu soo gudbiso warbixin aanu soo gudbinin xisaab hantidhowruhuna sidiisa uu soo gudbiyey idinka annagana laga rabo inaanu si toos ah u soo gudbino annagoo taa gudanayna oo fulinayna ayaa aan soo celinay mar labaad xisaab xidhkii golaha keennay mar saddexaad waxaana laga codsaday sida uu qabo xeeroosaadka golaha shacabku in waxyaalaha golaha imanaya hay'adaha dawladda ka imanaya inay kabinetka soo maraan oo golaha wasiiradu soo gudbiyo sidaasaan haddana mar saddexaad yeelnay golaha wasiirada ayaa xisaab xidhka soo marinay lagaga soo dooday soo ansixiyey waa noqolkii saddexaad ee xisaab xidha ee golaha yimaada si aan infactina runtii waxay ka imanayaan kala aragti duwanaanshahaas qaabka loo soo gudbinayaana wuxuu ka imanayay mugdi ku jira dhanka sharciga BFM-ka oo meelaha qaarna uu sheegayo in hantidhowruhu soo gudbiyo meelaha qaarna uu sheegayo in wasaaraddu ay soo gudbiso marka si taa looga gudbo labadaba saddexdaba waa soo gudbinay saddexda farshaxan golaha yaalaan hadda kii u dambeeyey baa gacantiina ku jira warbixinta xisaab xidhku waa kooban tahay aan ka jeedin doonaa because idinkaa la rabaa inaad ka soo baaraan degtaan soo niqaashtaan dabeedna wixii ra'yiya iyo tala ah golaha ku soo celisaan gudmad kooban ayaan idinka siinayaa keliya wadarta dakhliga gudaha iyo deeqaha ee miisaaniyadda sanadkii 2022 waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 769 milyan wadarta kharashka guud ee miisaaniyadda lagu odoraysayna waxay ahayd 731 milyan hase yeeshee sida caadada ah waxa aynu samaynaa marka sanadka bartamihiisa la marayo inaynu dib u qiimayno aynu eegno miisaaniyadda oo daraskii lagu sameeyey in aynu wax ka bedelno iyo in kale ku noqoshadii la sameeyey miisaaniyadda dhanka kharashka koror baa ku yimi waxaa golaha halkan ku ansixiyey qadar dhan 929 milyan dhanka kharashka rasmiga ah ee baxay waxa uu ka soo ururay 731 milyan haraaga miisaaniyadduna wuxuu noqday 189 milyan oo boqol ahaan u dhigmayay 21 milyan marka waxa aan idin soo jeedinayaa runtii idinkoo sharaf leh inaad warbixintu waa faahfaahsan tahay inaad soo daristaan soo eegtaan ka soo baaraan degtaan wixii talo iyo tusaale ah iyo toosina golaha lagaga doodo akhrinta labaad haddana waa soo dhowaynaynaa wixii quseeya mabaadi'da guud xeeroosaadku uu jideeyey waxa aan marka lay ogolaado sidoo kale soo jeedin doonaa miisaaniyaddii oo faahfaahsan aad iyo aad baa u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.